dowladda Shiinaha ayaa waxay qaaday tallaabo laga muujinayo cabsi ballaaran waxaana hawada dalka Mareykanka markii ugu horeysay lagu arkay walax duulaya taasi oo dowladda Mareykanku ay ku tilmaamtay inuu yahay buufin wax lagu basaasayo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in buufin muuqata oo basaasnimo ah uu dulmariyo Mareykanka uu yahay wax aan la aqbali karin oo mas'uuliyad darro ah. diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanka ayaa si lama filaan ah u baajiyay safar uu ku tagi lahaa magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, kaasi oo noqon lahaa kulankii ugu horreeyay ee heer sare ah oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku kulmaan muddo sanado ah. Shiinaha ayaa mar sii horreysay muujiyay sida uu uga xun yahay isagoo sheegay inay ahayd buufin cimilada loo adeegsanayo oo ku soo luntay hawada dalka Mareykanka. hase ahaatee xajmiga buufinkan ayaa dadku waxa ay u malaynayaan midkii caadiga ahaa ee la yaqiinay. waa uu ballaaran yahay ilaa heer uu ka weyn yahay 3 gawaari basas oo nuuca waaweyn ah kuwaasi oo la isku daray, waxaana ku rakiban qalab sirdoon oo Mareykanku uu sheegay inay u badan yihiin kaamirooyinka meelaha dhaadheer wax ka duuba, waxaana uu dul maray saldhigyo militari oo waaweyn. dhacdadan ayaa kusoo beegantay iyadoo cirka ay kusii shareerayso xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha. gelinka dambe ee Jimcihii, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegay in buufin labaad oo Shiineys ah lagu arkay iyada oo maraysa qaaradda Latin America. waxaan aragnaa warbixinada ku saabsan buufin dhex maraysa hawada wadamada Latin America, waxaana hadda qiimeeyay inay tahay buufin kale oo Shiinuhu leeyahay in kale, ayuu yiri xogayaha warfaafinta Pentagon-ka General Patrick Ryder. ma uusan bixin generaalku wax tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan halka uu ku sugan yahay buufinkaasi labaad. Mr. Blinken, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa ku tilmaamay buufinta Shiinaha ee dul haabaysa Mareykanka mid xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi. tani waa mid aan la aqbali karin iyo sidoo kale tallaabo mas'uuliyad darro ah, ayuu yidhi. xitaa waa mas'uuliyad darro aad u badan oo lagu soo aadiyey habeenkii booqashada la qorsheeyey, ayuu yidhi xogayuhu. diblomaasigan sare ee Mareykanka ayaa la qorsheeyey inuu booqdo Beijing laga bilaabo 5 ilaa 6 bisha February si uu ula galo arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga Taiwan iyo sidoo kale COVID-19, taasi oo Shiinuhu u arko kuwo khad cas ah intooda badan. balse saraakiisha difaaca Mareykanku waxa ay ku dhawaaqeen maalinimo Khamiis ah inay la socdaan buufin meel sare maraysa oo ilaalo ama sidoo kale ilo sirdoon u ah Shiinaha, taasi oo dul maraysa hawada Mareykanka. inkastoo buufintu ay ahayd sida Pentagon-ku uu ku sheegay mid uu ku socdaalayay meel sare oo ka sarreysa hawada diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa dagaalka oo aanay ku ahayn khatar ciidan iyo mid dhuleed dadka dhulka jooga, haddana sugnaashiyaha buufinta ee hawada Mareykanka ayaa dhalisay carab ballaaran oo gudaha ee ciidamada iyo siyaasiyiinta dalka Mareykanka ah. Shiinaha waxa ugu dambeyntii uu qiray in buufinku yahay hanti uu leeyahay, isagoo sheegay inuu yahay duulimaad rayid ah oo loo isticmaalayo cilmi baaris saadaasha hawada la xiriirta, taasi oo ka leexatay waddadii ay ku socotay cimilada oo xun awgeed. sidoo kale Shiinuhu waxa uu ku tilmaamay in dabaylo xun oo ku dhuftay hawada dalka Mareykanka ay keeneen in buufinku uu galo hawada, wuxuuna sheegay haatan inay ka baxday gacantooda. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin falkaasi ayna kala shaqeyn doonaan Mareykanka sidii loo xalin lahaa arrintan. si kastaba ha ahaatee, sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha waxa uu sheegay in inkastoo Mareykanku uu garwaaqsaday sheegashada Shiinaha ee ku saabsan ujeedada buufinta, haddana ay u istaageen qiimeynta loo isticmaalay ilaalo. safar kale oo Mr. Blinken uu ku tagayo Shiinaha ayaa la qorsheyn doonaa fursadda ugu horeysa. sarkaal kale oo ka tirsan waaxda gobolka ayaa yidhi, isagoo intaa ku daray in Washington ay qorsheynayso inay sii wado khadka isgaarsiinta furan oo ku saabsan dhacdada taasi oo ay la leedahay Beijing. sarkaalkan ayaa intaa ku daray in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku wargelisay dowladaha saaxiibka dhowlaha Mareykanka xadgudubka hawada Mareykanka loo geystay. bayaan ay soo saartay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inay ugu yeertay safiirka Shiinaha ee Canada dhacdadan awgeed, ayna si adag uga muujin doonto dhacdadaasi. waxaana ay sheegtay in mowqifka wasaaraddu uu yahay mid adag oo la xiriira arrinka. afhayeen u hadlay aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku raacay xogayihiisa Mr. Blinken inaysan ku habboonayn inuu aado Shiinaha waqtigan. Mr. Biden ma uusan weydiin su'aalo ku saabsan buufinta kadib hadallo ku saabsan dhaqaalaha Mareykanka,
oo subaxnimadii Jimcaha uu la yeeshay dhigiisa. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka, buufintan ayaa dul martay gobolka Mareykanka ee Alaska iyo sidoo kale Canada ka hor inta aysan kasoo muuqan gobolka Montana, kaasi oo Mareykanka galbeedkiisa dhaca, halkaas oo ay ku yaalaan dhowr xarumood oo xasaasi ah oo gantaalada nuclear-ka ah. Subaxnimadii Jimcaha, buufinku waxa uu u dhaqaaqay dhanka bari, waxaana uu ku dul marayay bartamaha qaaradaha Mareykanka isagoo si jooggiisu u dhan yahay ama joogga uu ku duulayay uu dhan yahay 18,000 oo tallaabo, sida uu sheegay taliyaha ciidanka cirka sarreeya guuto Pat Ryder. Senatarka lagu magacaabo Kansas Roger ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in buufinku uu dul maray waqooyiga bari ee gobolkiisa subaxnimadii hore ee Jimcaha. General Ryder ayaa intaa ku daray in saraakiisha Mareykanku ay isha ku hayaan buufinta ayna dib u eegis ku samayn doonaan waxa uuna sidoo kale sheegay in buufintu uu ku tilmaamay mid la xakameyn karo, aysan wax khatar ciidanay mid dhuleed toona u geysan karin dadka dhulka ku sugan. Inkasta oo diyaaradaha dagaalka lagu wargeliyay, haddana Mareykanku waxa uu go'aansaday inaanu soo ridin cabsi laga qabo burburka oo soo dhacaya awgii, maadaama buufinkani uu yahay mid aad xajmigiisu u culus yahay, lagana yaabo inuu dhibaato u geysto dadka rayidka ah ee ku sugan dhulka. Mucaaradka siyaasadeed ee madaxweynaha dimuqraadiga ah ayaa dalbaday in tallaabo adag laga qaado Shiinaha. Dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku booriyay Mareykanka inuu soo rido shaygaasi basaaska lagu tilmaamay. Soo rid buufinta ayuu Mr. Trump ku yiri fariin uu soo dhigay bartiisa bulshada ee Truth. Afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa isna bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in dhacdada buufinku ay tahay tallaabo xasilooni darro ah oo ay tahay in wax laga qabto. Maamulka Biden waa inuu hadda kala dagaalamo tukaha Shiinaha labada dhinac ee siyaasadda iyo sidoo kale militariga, ayuu hadalkiisa sii raaciyay sarkaalkan. Senatarka dimuqraadiga ah oo lagu magacaabo John Tester, kaasi oo kasoo baxa gobolka Montana, ayaa bayaan soo saaray ku sheegay inuu weli sugayo jawaabaha dhabta ah ee xukuumadda. Saraakiisha Shiinaha ayaa horey si cad u muujiyay xiisaha ay u qabaan ururinta awoodda militari iyo sirta buufinada. Horumarka tiknoolajiyadda ayaa albaab cusub u furay isticmaalka buufinada, ayaa sanadkii hore lagu yiri maqaal ka soo baxay warbaahinta lagu magacaabo Liberation Army Daily oo militariga Shiinuhu maamulo. Sanadkii 2022, wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa sheegtay inay ka warheshay buufinada Shiinaha ee dul heehaabaya dhulkeeda, kuwaasi oo ku tilmaamtay kuwo lagu ururinayo xogaha. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee F-22 ayaa la kiciyay xilli buufinku gobolka Montana uu dul heehaabayay. Hase haatee, diyaaraduhu markay u dhowaadeen waxa ay sawirro ka qaadeen xajmigiisa, waxayna u sheegeen wasaaradda Pentagon-ka in soo rididiisu ay dhibaato xun gaarsiin karto dadka rayidka ah. Aqalka Cad ayaana ku raacay, waxaana amar lagu bixiyay in isha lagu hayo oo la dabagalo, hase haatee aan la soo ridin.